Hoggaanka guddida bulshada deegaanka Maxay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka soo horjeestay halka loogu talagalay in laga dhiso Muqdishada cusub, taasoo mar hore loo sahamiyay in ay noqoto garoon iyo deked oo ay yeelanayso magaalada New Muqdisho. Haddaba bulshadan oo ku dhaqan deegaanka Maxay ayaa waxa ay sheegeen in aysan dooneynin in deegaankooda laga hirgeliyo magaalo aysan raali ka ahayn, iyagoona carabaabay in yar iyo weynba ay baahi weyn u qabaan dhulkooda. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha guddiga deegaanka Maxay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo macowgeed cali Maxayna ku dhashay, abkay adoogayna joogi jiray. Beec laga dhigay, beec ma ahan, Maxay beec ma ahan, waa xoolo dhaqato. Ananka iskale 15,000 oo saqiir saba joog ahaa ku nool. Beec ma ahan, beec ma ahan, beec ma ahan. Afarta cunug oo ilmaho aniga corodkayga aan dhamaynin inay ka talshaan, ay ku naashnaashaan, ay hotel ka dhistaan rabaana waxba kama jiraan. Waa xanaano xoonaad, xoolahan ku dhaqaalaysanaa. Abkaya adoogaya joogi jiray, haddana xabad kama rabno, noona beec ma ahan, mana naqon doono. aniga nin qarsan ma ihi. Macali Yuusuf Macali Hiluula Maxay la yiraahdo, adoogay Maxay oo ku magacawnay. Hortiisna dugsi laguma oodin. diinka Maxay asaafafiyay. waxaan idinka codsaa dawladda madaxweynaha uu weeyahay golaha deegaan uu yar yahay, duuliye mataanaan la yiraa 5 ceelaan deganahay, xamar, ceel cadde, malable, haabay, 5 Maxay ku Maxayna ma dhiig ku gelin oo wax aga dhiman oo carrada soo halgamin oo biriga dhul oo hayaysan maas sagaal iyo arkay iyo 4 ceelo kala soo cunay ana ko nagala hadlin dad dhalaho fara ku tiris hoos ma tagaabano aragtidoor iska yar tahay caruur yar yar ah oo shala maanta dhasheen oo gutooyadoor meel laga guda waaga caddahay inay dhulka ma ogolin. dawladda waxaan ka codsanaynaa dhulkaas yatiima iskale. haddaan shala maanta ana dad u dhimahay qarniyaa loo dhintay. ma ogolin in dhulkaas yatiimeed dawladda yaa lagu ajarin. dadkan shirkadaha oo lacagta iska gelihayo, dad muslim ahaan nahay, dad islaam ahaan nahay, dad diinta ku dhaqdaan nahay. waxaa la rabaa in la iska ilaalsho oo dadka maha jooga hayahaysana yatiimow leeyahay, waayeelow leeyahay, hayahaysana dad oo hayahaysana xoolo dhaqataa oo masaakiin oo weligiis meel kale aan wax ka cunin oo leeyahay. iyo dal masaar ku noola dhulka. haddaad adiga waxaa ku jiro niman heer adoogayna oo kayga anaale kaagana kula lihi ahaa meeha ku jiro. anigoo Baashi Maxamed Makaraan ku dhashay ceel Maxay goof kule dadka deegaanka iyo deegaan oo dadka deegaanka ka mid ah. waxaa dhacday inaa maaragta doolarka waxaan cabasho ka ahay, waxaan cabasho ka nahay aniga qaasatan shafkay igu haysaa goof oo geeda ku yaaliin oo beere ku yaaliin oo buuladiisa le cabdibile baallo uu dhinaca ka socdo la gashaday anoo joogin. waa la cabirtay, dukumentiyaa loo jartay. goofkaas anaa iskale, Baashi Maxamed Makaraanaa iskale. niman dhidhinahoo dhallinyaraa oo hadduu alla kuu roon yahay golaha deegaanka degmada Warshiq, mid yaroo maaragtay oo guddoomiye ka amniga ka
waxaa la yidhaahaa guddoomiye jookay aniga ma diidanin annaga ma diidanin oo guddoomiyahayna waaye wuxuu ugu sameeyey markii iigu dambaysay aniga waxaa ugu tegay gurigiisa haddeer soonka hortiis gurigiisaa ugu tegey gurigiisaan ugu tegey wuxuu yidhi hadduu alla kuu rooyaa goofkaaga danta guudow galay danta guud in cabdi hoomoy miya in kuulow faalyara miya ma in xamuumaha caddoobaa ma cabdulla cubeydaa danta guud waa gara waayey aniga inta gaasatan u leh oo goofkayga ila leh waa gara waayey cabashaa ka nahay dowladda cabasho u nahay ceelka oo maaxay la yidhaaho ceelka maaxay la yidhaaho duulihii ka soo jeedayo cabayayaan nahay annaga intaynan hadda inta fadhido cabashaan nahay afartii ceelay soo cuneen waxay noogu yimideen halkii ceel oo hadduu alikuraa u dhimanay oo abkaynaa ku soo dhintay intaasaan ku ducoysanaynay 500 sano aan ku ducoysanaynay milkida tii gaarka loo lahay xataa ma dhaafin tii guud iska daaya tii gaarka loo lahay xataa ma dhaafin ilmahaasi dowladdan u cabaynaa bismi illaahi raxmaani raxiim maantay waxaan isugu nimidnay shirkan jaraa-id deegaanka maaxay anakoo ka cabanayno dowladda federaalka iyo ninka la yidhaaho maareeyaha dekedda xamar nayuu muqdishoa laga yaalina maaxay war nayuu muqdishow intee lagugu dhisa rabaa intaase lagaa dhisaa war dowladda soomaaliyeed waxaan siina elaboor waxaan siina deked waxaan siina golo shacab waxaan siina madaxtooyo waxaan siina degmo war inta yaroo fara ku tiriska oo gacantayna kusoo hirto oo deegaanaan u degannahay waxaan u sheegaynaa dowladda cod dheer iyo cod gaamanba deegaanka maaxay waa deegaan dad degan yahay habeenkii maalinta laga soofo habeenkiina loo soo hoydo degan yihiin dad yar oo ah 1,500,000 oo qofood kuna nool naf iyo xoolo waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka oo xasan sheekh maxamuud hogaaminayo anaka nuyuu muqdisho nama qabato waa diidnay haddaan aan ka gudubno meesha la yidhaha maaxay waxaa iskale agoom waxaa le waayeel waxaa le nin dherabka saaran waxaa le nin dalka ka maqan nin joogo in laga dhaxal koobana ma jirto 10 iyo 5 milyan cod lama gelin dhaxal koob lama gelin dad danaqaasa wataan aan rabaa inay danooda ka fishadaan intay gabar naga dambaysana waa diidnay waxaan u sheegaynaa dadka barabagaandada meelaha baafiyaan dhahay maaxaya anakaan dadkaas shala maantaan anakana matalo ka hadlay ou ka mid yahay ninka la yidhaha maxamed xaaji war deegaanna maaxay uma degano dad ahaano uma degano wadaadkaas dhanana waxaan u sheegaya oo meelaha ka hadlaayo cabdullaahi xaaji waxaan u sheegaa deegaankaas kumana dhalan umana dhalan deegaan ahaan uma matalo waxaan u sheegaa iyo dadka yar oo ninka la yidhaha cariish oo wato oo gacantoogsiga war maaxay ma lihidiin war faraha kala baxa war wuxuu uri waa matalaa wuxuu uri raaligelinaa ka bixinaa war intaa raaligelin ka baxe oo leedahay yaase raaligelin u bixinaysaa waxaan kuu sheegaa wararkaas oo meelaha baafayso walaalkayow ka fiirso kugamana mudno kaamana mudnine walaalkayow dhibkana haysto waa u jeedaa haddaan garab nagu siiyan faraha naga qaad waana diidnay waxaan sheegaynaa anaka waxaan u dhalanay nima la yidhaha galmaax yoonis waxaan nahay nima la yidhaha cumar galmaax waxaan nahay nima la yidhaha duuliye maaxaay intay gabar naga dambaysana maaxaay nayuu muqdisho ma ogolin allahu akbar assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu maxamuud cabdulle maxamed waxaa ka hadlayaa dhibaatooyin badan oo soo naqnaqdeen oo arrimo dhuleed ku saabsan halahan dadahoo meesha fadhiyo waxay u dhasheen deegaanka maaxay meel qarsoon ma ahan waa magac dheer tahay deelaasha maaxayaa ka mida ceelasha maaxayaa ka mida dadka waa yaqaanaan xamar
60 kilomitir ay u jirtaa ninkii rabo inuu deegaameeyo oo nayuu muqdisho markan ka dhigaa yiraaho horta iimaanka la galsho waxaan rabnaa nin mas-uuliyad Soomaaliyeed haayo inuu ilmo dhidhinax oo muxuu ahaay iska bilaqdoon oo iska lacag raacadays inay u yimaadaan dhulka la leenahay loo gad yiraahaan asagana uu dawladda dalaal ag naqdaa sax ma ah bayna ku tahay farta cunug oo ma arkin qaraabo hoosaad kula ah ina warkood in qaado dawladda ma arkin ka soo gadaa aday ceeb kugu tahay heer maxayow ma ogashihiin dhulkiina in la iibsho ma ogashihiin dhulkiina in la iibsho ma ogashihiin yaha gobolka cusub ee arrinta loo geeyo haayo maxamed axmed amiir waa soo dhaweynay waa ku faraxsanaynay asagana yowna qaadanin dadka yar oo 5 qofood iyo 4 qofood iyo marka dadka lamidka ah warka ay wadwadaan meelaha yowna qaadanin dadka waa ka dhashay hataga meesha ha soo indheeyo ha aragyo haday markan u qalanto in la magaaliyo haday u qalantaa asaga dadka yimaado dadkiisa waaye dadka markan war ka doonto. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. heer maahayow mii maqasheen ananka shiiqaa leenahay macallimaa leenahay duqoobaa leenahay dhallinyaraa leenahay haweenaa leenahay yatiinaa leenahay intayna agoomanaa wada nahay anaka ceel maahayaa degannahay 5 ceelow degan yahay duulimataan 4 ceel nin soo laastay anuka noo soo hunguri dheer ma doonayno inayna soo galaan ma doonayno ugu dambeyntii bayaan ay isku waafaqsan yihiin dhammaan dadka deegaanka ayay soo saareen guddiga waxaana soo jeedinaya Abees Maxamed Nuur Fowday. Bismillahir Rahmaanir Rahiim war saxaafadeed ay soo saareen guddiga deegaanka Maaxay ku socota wasaaradda arrimaha gudaha war saxaafadeed maanta ay taariikhdu tahay 22 bisha Maarso sanadka 2025 kulan ay yeesheen guddiga deegaanka Maaxay waxay uga hadleen xaaladda deegaanka iyo sida ay uga soo horjeedaan qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dhul boob la damacsan yahay in lagu sameeyo deegaanada u dhaxeeya Warshiiq iyo Muqdisho. Guddigu waxay sheegeen in aysan aqbali doonin isla markaana in lagu soo marmarsiyoodo dhul boob iyadoo la leeyahay waxaa la sameynayaa garoon diyaaradeed iyo dekad. Guddiga deegaanku waxa ay sheegeen isla markaana intaasi ku dareen in dhulkooda uusan beec iyo kiro midnaba ahayn. Guddiga ayaa waxay uga digeen dawladda iyo shirkadaha ay wadato inaysan u suurtageli doonin boobka dhulka deegaanka Maaxay waxayna shirkadaha ugu baaqeen in hantidooda ama xoolahooda inaysan iska gelin dhulkaasi oo dadkii lahaa ay maanta joogaan. guddiga deegaanka Maaxay war saxaafadeedka ay soo saareen sidoo kale waxa ay ku sheegeen inuu jiro qorshe la damacsan yahay oo la xiriira in deegaanka lagu naasnuujiyo dad kale oo loo wato hab qabiil taas oo ay sheegeen inay tahay mid aan weligeed dhici doonin si isku duubni ahna ay uga soo horjeedaan dadka deegaanka Maaxay. war saxaafadeedka ay soo saareen guddiga ayaa waxa ay mar kale uga digeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradda arrimaha gudaha in markaasi laga waantoobo dhul boobka dadka deegaanka Maaxay oo ay ka dhaxleen awooyaashood waxayna sheegeen inay difaaci doonaan dhulkooda oo ay huri doonaan naf iyo maalba. wabillahi tawfiiq waa mahadsantihiin waa guddiga deegaanka Maaxay. dhulkan dhaca xeebta gobolka Shabeellaha Dhexe Muqdisho iyo Warshiiqna u dhaxeeya ayaa waxaa goor hore ay dawladda Soomaaliya u qorshaysay in halkaasi laga yagleelo Muqdishada cusub oo ay maal gashanayaan ganacsato Soomaaliyeed.